إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سيدي الشيخ محمود ماركوني حفظه الله قارئينه وشيغي يا سيدي الشيخ محمد حسين بارك الله فيه وأطال الله في عمره وشيغي وقديسه موضوعا جعلنا وحكاية تابتو وحوية تربية الأولاد في الإسلام عرورت يا سيدي لو كورين لها يوحو إسلامك كقبو أما بالأصح توجيهات كإسلامي يكون صابسا كوبعيستا يكوريستا عرورتا waxaa waajiba marka hore inuu waalidku ogaado mas'uuliyadda tijaahi abnaa'ihi mas'uuliyadda waalidka carruurta ka saaran iyo wixii laga filayo inuu marka hore waalidku ogaado. carabtu waxay tidhaahdaa faaqidu shay laa yucطih, qofaan waxba haysanin waxba kuma soo kordhin karo oo waxba ma anfici karo. qofkuna hadduu jaahil ka yahay mas'uuliyaddii la saaray ee ku saabsanayd carruurta inuu wax dureeyo mooyane waxba ma hagaajinayo. dad badan baa waxay u haystaan ama dumar badan baa waxay u haystaan hooyanimadu inay tahay ilmo uur lagu qaado oo la umulo naas la nuujiyo xaajadiisa oo qura inay ku koobantay intaa iyo cunto sii maryana u xidh una maydh nadiifi ha cararo marka iskuulka loo diro. waxay ilaawaysaa hooyadaasi markaa waxay jaahilad ka tahay dowr al-umuuma, dowrkii hooyanimada ayay jaahilad ka tahay oo waxay ka tahay jaahilad wixii laga filayay. gabadh waloo ilaahay sameeyaba intooda badan carruur way dhali karaan, naasna way nuujin karaan, qado iyo quraac iyo cashana way usoo dhigi karaan, maryahana way u maydhi karaan, iskuulkana way u heeriyen karaan. intaasi way dhici kartaa. laakiin hooyada dhabkii waa hooyada ka sii fakirta arrimo taa ka shisheeya. waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay inaynu qof walba uu mas-uul yahay kama fi saxiixi albukhaariyi wa muslim. wuxuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raciyati. qof walba mas-uuliyad baa saaran laga wareysanayo yowma alqiyaama. alrajulu raacin fi ahli beyti wa huwa mas-uulun can. ninka waxa la saaray mas-uuliyadda reerka yowma alqiyaamana waa laga wareysanaya. gabadhan xaaskana waxaa la saaray mas-uuliyadda guriga, carruurta tarbiyadooda ayaa la saaray iyo wixii gurigaas soo gala waana laga wareysanaya yowma alqiyaamaha.
wuxuu nebigu inoogu daray intaa inuu ilmahan lagu siiyey ilmaha aad haysataa inuu yahay ammaano waalidkana laga filayo ammaanada inay soo celiyaan ilaahayna qur'aanka subxaanahu wa tacaala ahamiyadda ammaanada wuu kaga hadlay kumana noqonaya aan kamana taataabanay wax badan nebigu wuxuu inoo sheegay inantan yara ku ag fadhida ama ilmaha yara ku ag fadhiya inanka yara ku ag fadhiya markuu dhashay wuxuu ku dhashay cala alfitra yani wuxuu ku dhashay ilmahaasi cala alfitra fitrada waa maxay waa siduu ilaahay u sameeyo waa ilmo daahira waa ilmo aan been aqoonin oo aan khiyaamo aqoonin oo aan wax xadis aqoonin oo wax ceeb aan lahayn لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحي كل مولود المولى دشابا وحكر دشا على الفطرة فطرة ومحي وفطرة الله التي فطر الناس عليها والنبي صلى الله عليه وسلم شاق فأبواه هو يد يا آبها أي إلمها عقيدة ديس كمسؤولة يهودان أو ينصران أو يمجسان ilmaha waalidku ma ka soo saari kara yahuudi iyo kristan iyo majuusi iyo wax kale waalidka ka soo saari kara beenaale waalidka ka soo saari kara mid khiyaamada yaqaan mid in waxada waa waalidka iyo bi'adu ma ka soo saari karta waayo ilmahan markii inoo siiyay ilma taahira oo nadiifa oo bari'a ayuu ahaa ilmu aan ceeb lahayn waxaana laga filayaa amaanada lagu saaray ina يوم القيامة sidii lagugu dhiibay aad u gudbisid oo lagaaga wareysto waxaan leeyahay marka waxa istithnaa oo xaaladda aan ka hadlayo ka disan waxa jirta dhuruuf marmarba laga yaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kugu ibtilayo ilmo aan mu'min ahayn wadiiqad jeexday iyo wadada jeexday iyo dariiqad qaadatay aan qaadanaynin laga yaaba waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa asaga yukhrij alxaya min almayit wa yukhrij almayita min alxay waxaa tusaale taa inoo ah waalid ilaahay subxaanahu wa tacaala ibtileeyey waxaa qur-aanka inaloogu sheegay nebi nuux calayhi salaatu wasalaam nebi nuux ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu soo diray wuxuu u soo dirayna inuu dadka hanuuniyo 950 sanadoodna dadku ku akhriyay ilaahay aamina walaqad arsalna nuuhan ila qawmihi falabitha fihim 1000 sana illa 50 aam ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi nuux buu soo diray dad buu u soo diray 950 sanadood ayuu ku akhriyay waxaanu kaga bilaabay qoyskiisa waayo wuxuu fahamsanaa ahamiyadda qoysku uu leeyahay wuxuu ogaa in mas'uuliyadiisu gurigiisa ay ka bilaabmayso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga sheekeeyey nebi nuux iyo inuu dhalayo caasiya waa xaalay istithnaa'iya waa laga yaabaa inay nagu dhacdo waa laga yaabaa adigoo qof quman oo saalixada oo ninkaagu nin saalixa uu yahay oo qoys wanaagsan ka soo jeeda oo ilaahay ka cabsanaya oo nebiga sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa raacaya inuu ilaahay kugu ibtileeyo mid yar siduu nebi nuux buu ibtileeyey ilaahay quraanka wuxuu inoogu sheegay inuu nebi nuux markii uu doonidii uu dhameeyey inankiisii caasiga ahaa aanu ka quusanin quraanka ilaahay wuxuu ku sheegay wuxuu ku yiri nebi nuux yaa bunay irkab macana wala takun maca alkaafiriin aabo markabka doonida soo raaco gaalada ha la joogin ha ka mid noqonin yarkii yara wuxuu ugu jawaabay qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimuni min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illahi ila man raxim waxaala baynahuma almawj fakana min almughraqiin ilaahay wuxuu inoogu sheegay qur'aanka inuu nebi nuux ku yidhi inankiisa aabba soo kor doonida yarkiina uu yidhi may uma baahni inaan soo koro doonidaade buurta ayaan kaga gabanaya mawjadahan iyo biyahan soo socda ilaahay wuxuu yidhi waxaala baynahuma almawj fakana min almughraqiin fakana
وحها إلهي سبحانه وتعالى كيري ضدك إلهي من المقرقينها بيو اللقين. نبي نوح عليه الصلاة والسلام ووالد كمو قصن إلمهيسي إلهي سبحانه وتعالى وتوجهي ونادى نوح رب نوح بإلهي الله فقال ربي إن بني من أهلي إلهي إن كيبه غيرك يقوس يكتر سيئا وهي إلهي قرآك محوك يحمل فيها من كل زوجين وأهلك دون إذا وحا صارت وح ولو لوك صار لم يدد كسار يا أهل كاغا نوح عليه الصلاة والسلام وحيري إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين بلان قاضي وعد كاغو بلان تادنا وبلان حقه أظن أحكم الحاكمين بعد إلهي وحقوق جوابه يا نوح إنه ليس من أهل إنه عمل غير الصالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وحنوقت هذا مركة إلهي وحقوق ابتلين كرا لكن حالة استثنائية كما حض لنا وحينو كحض لنا حالة عادية أو qoys walow muslimo uu ku noolaan karo marka ugu horeysa mas'uuliyadda ka saaran ilmuhu waa maxay hadaad gabar tahay hadaad ruux muslimada aad tahay mas'uuliyadda ilmaha ka saaran ugu horeysa waxa weeye inaad ilmahaaga u doontid aabbo quman gabadha habeenkii dhowtan darisan galay waxaan ku iri ina ragga waxa mas'uuliyadooda waajibku ilmuhu ku leeyahay waxa weeye inuu u doono hooyo saalixada gabadhana waxa laga doonayaa inay u doonto ilmahay dhali doonto intaanay dhalin inay u doonto ay u doorato aabbo saalixa aabbo masaajidka geeya aabbo qudwad u noqda aabbo asagu gacanta qabta aabbo raganimada bara aabbo cibaadada bara aabbo geesinimada bara aabbo karamnimada iyo karimnimada bara waa inay doorataa waa inay u doorataa ilmahay dhali doonto aabbo saalixa laga yaabaa dumar badan dumarkan marwooyinka niqaabka iyo jilbaabka in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya kama hadlayo laakiin maanta dumar badani inay door bidaan intay arkaan nin saalixa inay yidhaahdaan kani ama wax ma haysto ama dumar kaluu leeyahay ama xaalad kalaa jirta anigu waxaan doonayaa mid caynkaasa ay dooratay ku doorato ama gabadh kale hore uma qabo ama xoolo yar buu haysta ama mansab buu haysta ay markaa ka boodo xaqi ilmaheedu uu ku lahaan lahaa taasina waxa weeye dulm aad dulmiday ilmaha dhali doontid ilaahayna yowma alqiyaamaha uu kaa waraysanaya waa khiyaar baa lagu siiyey option baa lagu siiyey hooyada markaa waa inay u doorataa rajulun saalix nin ilaahay ka cabsanaya sharcina waynu ka hadalnay salaaxa arajul oo saddex baynu ku sheegnay koow salaaxatu waa inuu salaaxun bidaati asaga iyo inuu ilaahay ta u dhaxaysa waxaynu soo hadal qaadnay akhlaaqdiisa waxaynu soo hadal qaadnay qawaamadiisa wixii aynu shalay ka hadlinay oo dhan waa inay ruuxa dumarka markay doonayso nin guursato waa inay eegtaa inta haddii aad leedahay waa lay qabaa caruura waan dhalay odayguna meelahaasu ka yaraa sawir qalqayilaa siyaasadana faruhu kula jira meelahaasu ka soo qowqowleeyaayo maqaaxidaha kama dhammaado guriga soo hoyana waan ka kari la'ay maxaa xala imika waan ku jiraa musiibadii maxaa xala waxaa xala inaad ku dadaashid imika inaad hagaajisid intaad hagaajin karaysid waxaa xala markii hore qalad baad ku dhacday inaad horta ilaahay u toobad keentid waayo ilmahaaga waad dulmiday aabbo xun baad u keentay aabbo aanu berrito ku faanin baad u keentay aabbo aan tacliin iyo iimaan iyo qudwad iyo salaad iyo qiyaam iyo xaj iyo midna mala ahayn baad u keentay waayo ilmuhu aabbihii buu eegtaa nin baa waxaa la yidhi nin min asalafkiiba raximahullah nin saalixa buu ahaa waxaan kutusayaa ilmahan kutusaya taaiirku aabbuhu ku leeyahay nin saalixa buu ahaa inankiisii buu aabbo kaalay wuu u yimi inankii waa inan yar oo asaguna adab leh oo aabbihii jecel inuu ku daydo qaala man qudwatuk war yaa kuu tusaale ah yaad daba raacdaa yaad raad raacdaa yaad doonaysaa inaad sidiisa noqotid
inanku wuxuu arkay aabihii buu arkay oo masaajidka aan ka soo baxaynin oo qur'aanka ilaahay xafidsan oo aaminsan oo ku camal falaya oo ummadii wax baraya oo asagoo sheekha oo asagoo nin saalixa marka qafa qaala yaa abati ant adiga ii qudwada buu yiri adiga ayaa ii qudwada odaygu wuu xanaaqo wuxuu yiri khibta wa khasita buu yiri waad hoogto waad balanbashay khasaare tarbiyadeedu waa khasaare buu waan ku khasaare wuxuu yiri aradtu an akuna mithla ali ibn abi talib fanzur ila hali odaygu waa calaacalo wuxuu yiri waxaan doonayay inaan noqdo sidii cali bin abi talib halkan maraya eeg buudha bilaa macnaanay marka waxaan uga jeedaa inanku aabihii buu eeganaya aabihii baa qudwad u ah waayo ilmuhu intuu yar yahay hooyadu gacanta ku qaban kartaa way joojin kartaa hadhow markuu kuray uu noqdo uu nin ismoodo uu adiga kaa farabaxo yaa soo qabanaya yaa seetaynaya yaa gacanta ku dhegaya waa aabbaha laakiin hadduu aabbihii sigaar cabayo uu qayilayo uu meelaha ka towtow leeyahay uu ka hadlayo arrimo laa yusmin walaa yugni min juuc laa yanfachu fi dunya walaa fi laakhira hadday cayn ka noqoto dulmiga ilmaha iyo lumistiisa hooyada ka mas-uula waayo ayadaa ninkaa xun u doortay dumarow is ilaaliya haddii ay noqoto inaad ku jirtidna isdaba qabta oo ku dadaala inaad ninka hagaajisid waayo ilmuhu ishii wax ku barta tarbiyadda labaad talagaada laga doonaya waxa weeye markaad aabbo wanaagsan u dooratid talabaada laga doonaya waxa weeye inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala tadarruc iyo duco aad ula timaadid ilaahayow ilmahan dhali doono maaha ilmahan dhalay oo qura kaan dhali doono ilaahayow ii barake ilaahayow ii ilaali ilaahayow saalix ka dhig yani waa garanaysaan maryam hooyadeed imra'ati cimraan maxay tidhi qaalat rabbi inii nadartu laka maa fii baطni muxarar fataqabal min ilahay bay weydiisanaysaa hadda uur bay sidaa ilaahayow waxaanan sido adigan ku siiyey iga aqbal ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu ka aqbalay nebi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay wuu imtixaanay imtixaankiibuu ka soo baxay wuu baasay ilaahay baa ku yidhi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi inii jaaciluka linnaasi imaama ibraahimow dadka ayaad imaam u noqonaysaa qudwad baad u noqonaysaa tusaalaad u noqonaysaa wuxuu nebi ibraahim raacsaday qaala wa min duriyatii ilaahayow anigoo qurayaan qudwad noqoninan tusaale u noqonin ummadde ilaahayow caruurtaydana ka dhig mid qaar noqda imaamo ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay inuu asago iyo ilmihiisa inuu ducada baray ay ducaysan jireen maray kacbada dhisayeen ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi waid yarfacu ibraahiimu qawaacida min albeyti wa ismaaciil waxay dhisayaan kacbadii bay dhisayaan maxay leeyihiin waxay leeyihiin rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim ilaahayow naga aqbal yaa baray ducada ismaaciil ee aabihii baa baray ilaahay subxaanahu wa tacaala suurati maryam ducadii iyo dadaalkii ibraahim uu ismaaciil uu ku dadaalay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tusaya siduu nebi ismaaciil noqday ilahay wuxuu wadkur fi lkitaabi ismaaciil inahu kana saadiqa alwacdi wa kana rasuula nabiya wa kana ya'muru ahlahu biالsalaati wالzakaah wa kana cinda rabbihim mardiya yani waxay ku tusaysaa waxaasoo dhani inuu ducadu ay daruuri tahay nebi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam markuu ismaaciil oo yeer meesha kaga tegey muxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu yidhi ilaahayow caruurtayda waxaan kaga tegey meel aan dhiri ka bixin ilaahayow salaadda ha tukadaan ilaahayow dad u soo dir waxna sii thamaraadkan wax ka sii ya rab yani waa duco uu nebi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam ilmihiisa ugu ducaynayey waxaan leeyahay inkastoo waqtigu isgurayo uu ordayo waqtigii laga qabtana ii hadhay 10 minut waxaan jecelahay inaan wax ka yara taataabto masaa'il ku saabsan tarbiyadda ilmaha kow
intii markii labadii noqdood aan soo dhaafo hooyada waxa looga baahan yahay inay ilmaha ku tarbiyeyso tarbiya iimaaniya tarbiya cilmiya ma aha cilmigu maaha waxa la urursado oo maskaxda lagu hayo oo la xafidsanaado oo aan lagu camal falin maaha diinteenu cilmigu waa camal ilmihina camal ma keenayo oo lama imanayo ilaa iimaankiisa aad kobcisid ilmuhu waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tallaalada waa inuu ilaahay ku xidhnaadaa waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aaminsan yahay iimaanan yaqiinan asagoo yar tarbiya iimaaniya ina ilmaha lagu hooyadu ay ku koriso waa lagaba maarmaan waxaan leeyahay tarbiya iimaaniya waxa weeye kow ilmuhu warta waa ilaahay inuu jeclaado subxaanahu wa tacaala ilaahay waa ina ilmaha la jeclaysiyo ina la necbaysiyo ama lagaga cabsiyo ilaahay maaha innaka waxa caado iyo dhaqan inoo ah inaynu ilaahay ilmaha ku khuuqino yani ilmaha maxaa lagu khuuqiyaa wuxuu ka cabsado haddaad waxaa samaysay ilaahay baa ku cadaabaya cadaabtaad galaysa been baad sheegtay cadaabtii baad gashay ilmihii yara waad aastayba waa qalad waa tarbiyada ugu xun ilmaha waa inuu ilaahay jeclaada waa inaad ilaahay ilmaha ku tidhaahdaa haddii aad run sheegtid ilaahay wuu ku jeclaanaya jannaduu ku gelinaya wuu ku dambi dhaafaya haddii aad waxaa samay haddaad tukatid ilaahay waxaasuu ku siinaya intaasoo dhan buu ku siinaya haddii aad u baahatid cid ilaahay baa lagu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi ibni cabbaas oo ilmo yara hadda waa ilmo yaroo biyo ah ayuu dameertii ama baqladii nebigu fuushanaa buu xaggiisa dambe saaray waa ilmo yar muxuu yidhi qaala yaa ghulaam inii ucallimuka kalimaat ixfad allaha yaxfadk wuxuu ihi inankow ilmo yarow kelmadaan ku baraya bal u fiirso tarbiyadda nebiga sala allahu calayhi wasalam muu ku odhan ilaahay wuu ku cadaabaya ma wuxuu yidhi kelmadaan ku baraya ilaahay ilaali ilaahayna wuu ku ilaalinayaa ilaahay ilaali ilaahayna wuu ku ilaalinayaa nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam ciqaab ilaahay ilmaha muu tusin cadaab muu tusin cabsi muu tusin rajo ayuu ilmaha geliyey wuxuu ilmahani rajaynayaa inuu ilaahay u dambi dhaafo hadduu ilaahay xuduudkiisa ilaaliyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala tajiduhu tujaahak buu yidhi meeshaad ilaahay uga baahan tahay ilaahay baa kula jooga low ijtamac hadday ummaddu oo dhani is ururisa inay wax kugu sameeyaan ama ku anfacaan waxa ilaahay ku ogolaan waxba kusoo gaari maayaan ilmihii caqiidadiisii ilaahay baa ku xidhan yihin في صحيح البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر محوكو وإل مير قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي لبدا قربوا يقبت وإل مير أضو هذا المير أرتين محاد أوران لهاي اسكول كإلالي حساب تبرو بيولوجي كيمستري تاريخ حفظ مع نقو نين دختران نقو نين انجينير نقو نين سياق وحبا أوران لهاي لكن النبي صلى الله عليه وسلم إلمه رقربه قبطي سدو إلمه أركو النبي أيغو فقال يا ابن عمر وفيرسو هذا هو المير والشلا يعني لنا وكو المير شقنا هينين وحول كن في الدنيا كأنك غريب الدون كان سيدي مرتضى أوكله ولما عامل أو عابر السبيل أما من سفر كتيرة كن في الدنيا كأنك غريب والمير وحد أرس أوران الله ترى النبي محمد محو حيابك لو وشيء واي ومستقبل كيسة أنفعه تم حكى فضل بلانبا نبي صلى الله عليه وسلم المير آخره الدنيا كسو صاري آخر أيو صري قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وحوحكسي النبي صلى الله عبد الله بن عمر عفوا وحورنشري إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء هدي على عيد الصوب بحضه هالسجن إلى أنت دعي سعد عيده هدي على عيد دعنا هالسجن إلى أنت الصوب بحث وشدد ومحي laga yaabaa inaad dhimatid yaa baray waxaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa looga baahan yahay markaa hooyadu iyo waalidku inay intaa ilmaha inay baraan 6 mirir baa ii hadhay intii lay qabtay waxaa kale jira oo laga doonaya waalidka hooyadu
inay ilmaha ay siiso ay wax ku barto diinta ay ku barto usluub alqasas yani sheekooyinka ilmaha waxaa lagu baraa iimaankiisa lagu kobciyaa waxaa lagu kordhiyaa sheekooyinka yani qur-aanku 7% marka la qiyaaso ama in ka yar waa qisas waa reer bani israa'iil 770 iyo church ama 160 goor ayuu ilaahay qur-aanka ka hadlay muuse qisati yuusuf qisati ayuub qisati ismaaciil wax walba qur-aanka waa laga hadlay waayo qasasku sheekooyinku waa waxay carruurtu wax ku xasuustaan marka min baabi tarbiya waxa laga doonaya inaad ilmahaaga aad sheekooyin wax ku bartid sheekooyinkii saxaabada radiyallahu anhu nabiga aad kaga bilowdid sallallahu alayhi wa sallam a'immat as-salihin afarti imaam iyo dadkii taabiciintii qasaskaasoo dhan waa inaad ilmaha aad u ilaalisaa tasaddexaad talaga doonaya haddaad hooyo tahay inaad ilmaha aqligiisa iyo waxa maskaxdiisa galaya inaad ilaalisid culimadu maxay yiraahdaan waxay yiraahdaan ilmuhu ilaa iyo intuu 6 jir noqonayo waa cabqari ilmo walo dhashaaba ilaa intuu 6 jir noqonayo waa cabqari waa genius طيب هذا كان ير maxaa loo kari waayay suurat al-idaa jaa ba ayaan dhaafine muxuu damiin u yahay ilmahani muxuu alif baad u baran waay ilmahani muxuu xisaabta u fahmi waay culimadu waxay yiraahdeen maskaxda ilmaha way furantay ilaa intuu 6 jir gaarayo marka haddaad ilmihii TV hor dhigtid ama telefoonka u dhiibtid telefoonkaad u dhiibtid aad raadid iskaga ciyaar video game maskaxdiisii waxaad ka buuxisay qurun iyo xashiish maskaxdiisii maad ilaalin amaanadii ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu dhiibana maad ilaalin hooyooyinku waxaa laga yaabaa inta ayadu ka shaqaynayso guriga ama ay saaxiibadeed la sheekaysanayso ama inay tahdo iska fadhiso TV-ga u daarto waxay ilaawaysaa ilmahan maskaxdiisa waa inay ilaalisay waajibka ayada saaran wey wuxuu maqlayo iyo wuxuu arkayo iyo wuxuu cunayaba waxa ka mas'uula hooyada aabuhu intuu shaqada ku maqan yahay quudka ilmaha u soo dadaalayo mas'uuliyadu waxay saarantay hooyada bari anagu ku jira jaamacadda anagu ku jira ayaa sheekh wuxuu nooga sheekeeyay sheekh Fahd al-Hamoud baa la oran jiray xafidahullah wuxuu nooga sheekeeyay imaam al-Bukhari iyo caynkii wuxuu xafidi jiray يا إمام الشافعي يا عينك لها ميموري في يعني ذاكرة عجيبة وحنا نقول كل جين قدرة والله هيدان لكن والله مثل ما يمان الله ما نكون لي مدنا جميل إمام البخاري لو من نقنكره إمام الشافعي لو من نقنكره وأنا ذي الامتحان يا أبوي وحيلي جلاسكي كوبكي لعياري تاريخ ده وورلد كاب ونشيء فاينل سي يمي شو ده متبع صوبودي هبلا واحد دولة ده هبلا يا يتمي جول إمسك جول بلوك ربدي أنت صو جول أنت صو جول يا للي هبل بعد للي وقت متبع حتى شيء وقت جول كلا للي شيء معلم كمان يقول وحي بلاك مسكحدني وحكب حسين قرن يا حشيش يا وح لا يسمي ولا يغني من جوع إمام البخاري يقول يا إمام الشافعي يا إمام أحمد بن حنبل يا إمام ابن تيمية يا علماء آخرين مسكح دودا مركي يا رايم اللي جبوا حيي وأنفع آخر دودا علم نافع الله من ربي هرسن شيخ الله من ربي هرسن طلبت أصدق هذا ما أفراد أن تعالى إن لقى حضلو هذه التربية تاي إنه هو يدو إلى التربية الخلقية أخلاق ilmaha waa in adabta la bara oo akhlaaq islaami oo wanaagsan la bara nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuu inoo sheegay dadka ugu fadhi dhow yawm al-qiyaamah ee asagu ugu jecel yahay dadka yawm al-qiyaamah wa ahasinukum akhlaqa wa dadka idinku akhlaaqda wanaagsan carruurtu markay yar yihiin akhlaaq bari kartaa markay waa weynaadaan ay noqdaan 15 jir ama 16 jir ama 17 jir akhlaaq lama bari karo waa too late raganimo la bari kara markaas oo abihiba loo dhiibaya laakiin inta ka horeysa akhlaaqda waxa baraysa waa hooyada
akhlaaqda laga doonay inay barto waa hooyada. ta ugu dambaysa nuqdada ugu dambaysa aan ku yara xada ilmahaagu waliba habluhu haddaad hooyo tahay sidaad adigu tahay ayuunbay hadhow noqonaysa. hadday inantaada yari ay kaa aragto inaad xishmaynaysid ninkaaga, aad u khidmadaynaysid oo aad ku dadaalaysid sacaadadiisa oo codkaad ilaalinaysid, sidaas si leeg ayaa dhow ninkeeda loo dhaqmaysaa. sheekey aan bari meel ka sheekeeyey, waxaa maraykankaanu joognay, waxaa isguursaday nin madow oo soo muslimay ayaa wuxuu guursaday gabadh madow oo soo muslimta masaajidka iyaga joogta. iyaduna waa maraykankaanu joognaa. ninkan madoobi muu arag gabadh madow sida ugu shaqaysa. wuu ii yimi wuxuu yidhi waniba gabadhii arrimo cajiib ay samaysaayo aanan aqoonine bal la hadal. saan maxay samaysaa? wuxuu yidhi markii guriga aan soo galo way albaabkay igu sugaysaa. waa gabadh madow oo muslimada oo soo muslimtay. madowga ceeb maaha, yani waa maraykankan uga jeeda, cadaanka iyo madow baa la kala yahay maraykanka. waa African American, waa gabadh wanaagsan soo muslimtay. wuxuu yidhi markaan soo galo maryaha iga qaadaa, waxbay siinaysaa cunto, way i dawakhisay. anna waxaan u bartay in madbakha cala duul u galo. gabadhii baan u yeedhay, heblaayo maxaa jira? waxay tidhi hooyaday waa gabadh ayaduna waxay tidhi oo gaalada markaanu yaryarayn, markuu aabbahay soo dhow yahay wakhtiga shaqada uu ka soo rawaxayo way noo meydhi jirtay. markaasay bajaamo qurux badan ayay noo gelin jirtay oo nadiifa, cadar bay nagu buufin jirtay. albaabka ayaan istaagi jirayo markuu aabba albaabka muftaaxa u geliyo hooya ka furi jirtay markiiba. judhi bay ka furaysaa. kursi bay halkan yaalla bay tidhi, tuwaale halkaasuu u saaran yahay ayadii. waxay tidhi markuu soo galo ayaanu ku cararaa aabbahay, waanu dhunkannaa. markaasay tidhaahdaa dusha kor haddaba. kursi bay ku fadhiisiisaa. waa gabadh gaalada markaa. kabahay ka bixisaa, maryihii bay ka bixisaa, koorarkiiyo wixii maryihii kale, tuwaalkii bay u dhiibtaa. orodoo soo maydho, maryihii waa u diyaar bay tidhi. miiskiio cashada taalo ayuu u yimaadaa. waxay tiri taan ka bartay hooyaday ayaan maanta ninkay kula dhaqmaa ee wuu yaaban yahay, asaguu naxsan yahayba. iminka nin Soomaaliyeed oo weliba dadka qurbaha jooga odhanaya gabadhayda caynkaasay ii samaysaa, xaasayga caynkaasay ii samaysaa. dee horta ma jiro. hadday ay ku idhaahdo caynkaa ay samaysa oo maadaa ilaah, oo maadaa i soo korsaday, maadaan kuu shaqeeya, oo maadaa waar albaabka qabso. laakiin u fiirso, inantani hooyadeedoo gaalada ayay ka baratay caynka ninkeeda loo dhaqo oo loola macaamilo. inantaadaa yara way ku eegaysaa. haddii laakiin markuu ninku albaabka ka soo galo aad ku qaylisid, waar kadabgoy, waar maxaa, waar ayaduna ninkeedu way ku qaylinaysaa. ayaan dhow inan yaroo Canada joogta ayaa la guursaday, magaalo la dhahdo Edmonton bay. inantii waa la guursaday, nin baa guursaday ka yimid Soomaaliya. markuu guursaday ayaa habeenkii arooskiiba gurigiiba la keenay. subaxdii asaguna xusayda waad guursatay oo waa degtay, imakaa degtay. waa nin iska miskiin oo Soomaaliya, gabadhin waxaa ku dhalatay Canada. subaxdii baa la soo kacay, madbakhay gashay, si yar caaniyar bay kusoo shubatay, miiskay soo fadhiis ka cuntay. markaasuu yidhi quraacdii meeday? say tii oh I'm sorry, halkaasay taallaa siryalka caaniya talaagada ku jiraan, soo qaado bay ku tiri. naxdinta. markaasuu yidhi annaka dumarku yani ninka way u khidmadeeyaan. waxay tidhi hooyaday aabbahay weligii umay khidmadaynin. are you better than my father? aabbahay meed ka wanaagsantay bay tiri. waryahay aabbahay meed ka fiicantay. marka ilmaha inantaadan yari way ku eegaysaa. marka bar akhlaaqda الإسلامية. وجزاكم الله خير. أفر مرة زيادة كدر صدي رالي مسكن نقوم كرتان. سبحان الله سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.